ololaha midnimada iyo badbaadinta galmudug oo maanta looga dhawaaqay munaasabada lagu qabtay magaalada Cadaad ayaa waxa ka qayb galay siyaasiyiin qaarkood xilliga soo qabtay galmudug iyo maamuladii ka horeeyay waxgarad dhalinyaro iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada. munaasabada ayaa laga sheegay inuu u furan yahay qof kasta inuu ka mid noqdo golahan haddii uu buuxiyo xeerarka u yaala golaha. wasiirkii hore ee dib u heshiisiinta dastuurka galmudug Cismaan Maxamed Cali oo gudoomiye ku meel gaar ah oo ololaha lagu dhawaaqay ayaa ka warbixiyay ujeedooyinka loo aasaasay iyo waxyaabaha ay qaban doonaan. waan ka bilaabaynaa waa rabaan intii ma ogaatiin inaan furayno maanta xafladiisii golo la yiraahdo golaha midnimada iyo badbaadinta galmudug. marka koowaad golahaas wuxuu yahay golahaas marka magaca golahaas ka suwaye nooca golaha muxuu yahay waa maxay nuuciisu waa nooc golaha waa golo bulsho siyaasadeed hufan leh weeyo golahan ma aha golo farbaasada lagu qaybsanayo qof kasta muwaadin ayaa xaq u leeyahay inuu ka soo qaybgeli karo waa odin waa golo qof kasta oo Soomaaliya oo wali reer galmudug halkan degan u furan inuu ka soo qayb galo. qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay golaha munaasabada looga dhawaaqay siyaasiyiin iyo waxgarad ayaa soo dhaweeyay golahan kuna tilmaamay in lagu soo aadiyo xilli munaasib ah isla markaana ay tahay waqtigii loo baahnaa in lagu dhawaaqo golahan. runtii marka dhiyaalatiga laga hadlo marnaba kama tanaasuleyno ama macnaha ma aqbalayno haddii laga leexiyey heshiiskii galmudug ay gashay oo 12 qabiil isku darsadeen haddii laga weeciyo wadadii aan loogu talagalay ee sharciga ahayd dadkan heshiisku ahaayeen ka fiirsiga galmudug managa maxaa la yiraahdaa ma ka tanaasuleyno ma aha xisbi ama loola sameeyay shirkani ma aha mid madaxweyne xasidnimo ku ah ama galmudug inuu wax taran mooyo wax yeelaya ma aha mid ummadda Soomaaliyeed meel joogta ilaa federaalka ku ah wax la yiraahdo mucaaradad ama ka horimaad ma waa xisbi raba in lagu noolaado dadkiisa dalkiisa ilaaliyo. kolay anaga markii la yiri xisbigan oo la yiri golaha midnimada iyo badbaadinta galmudug dawaa eray wanaagsan erayga meesha ku qoray si xun loo fasirta maahan shirka looga baxo ayakana waxa ugu fadhinaa qodobada halka ay ku qoreen runtooda inay noo soo taabtaan. xisbigan anagu waa soo dhaweynaynaa hadaan dhalinyarta degmada badan labe waxyaalahan ku soo dhaweynaa waxa boor ku qoran waay. ololahan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee looga dhawaaqa galmudug hasagoona ku soo aadaya xilli dhawaan galmudug iyo Luusano ay heshiisyo isku biiritaan ay gaareen balse ay weli taagan yihiin dad ka soo horjeeda heshiiskaasi. Mubaarak Maxamuud Sheekh Aadan TV-ga caalamiga Universal Cadaado.